بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisha ana sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad iyo kasii badanba waxaa maanta idin soo bandhigaynaa sida aad nooga barateenba dhismayaasha ama mid ka mid ah dhismayaasha aan gacanta ku hayno muuqaalkan waxaa ugu talagalnay inaad fahantaan qaabka naqshadaha guryaha loo diyaariyo ama aasaaska loogu diyaariyo hadba qolalka gurigaasi oo ka koobnaanayo. Gurigan wuxuu ka kooban yahay 4 qol oo jiif ah iyo 1 qol oo fadhi ah. Marka waa ujeedaan meesha sida loo jarjarayo qol walbo sidoo noqonayo meeshan ayaa ka fahmi kartaa iyo inta qol ay noqonayso. haddii aan dhinacan ka bilaawno meeshan ay ujeedaan waa qolka jiifka meelaha yararka ah waa musqulihii dabcan ayaan ka iloobin gurigan wuxuu yeelanayaa 3 musqulood wuxuu kaloo yeelanayaa barando iyo sidoo kale baarkin weyn oo qurux badan. safkaas waxa ku jira waa qolalkii waxaa saf noqonaya 3 qol waxaa soo bilaabanaya kowga hore qol jiif ah kadib qol fadhi oo weyn kadib 2 qol kale oo jiif ah ku xigsanaysa. meeshaas ay ujeedaan dheerka ahna waa baarkinka kadib dhinacan hadda ay ujeedaan oo loo soo leexanayo marka 4taas qol ee safato waa qolkii jiifka ee weynaay. geeskaas waxa uga dhigan meesha boosashka xigta waxay noqonaysaa qol waa laga dhigi karaa haddii kale waxay noqonaysaa meel yar oo baarkin ah oo hangar leh baabuurta lagu xareeyo. xoogaa fahanteena rajeynaya qolalka cabiradooda way kala weynaanayaan dabcan waxaa u weyn qolka fadhiga uu noqonayo 5 mitir iyo 40 senti. qolal kale waxay noqonayaan 4 mitir insha Allah. ka faa'iideysi wacan wixii faahfaahin dheeri adeeg dhisme la xiriir la soo xiriir lambarada meesha ku qoran. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka kanaalkana subscribe noo saar adigoo mahadsan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi